ugu yaraan 50 caruur Soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan bil kasta ugu geeriyooda isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir sidoo kalena qiyaastii in ka badan 6 ilaa 7 hooyo ayaa bil kasta ku umul raaca isbitaalkani waxaana la sheegay dhamaantood inay u geeriyoodeen xaalad nafaqo darro iyo adeeg xumo dhacdadii argagaxa lahayd ee dhawaan ka dhacday afaafka hore isbitaalka hooyada iyo dhallaanka Banaadir muuqaallo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa si ba'an u taabtay qulubta dad badan oo Soomaaliyeed taasoo muujinaysay hooyo Soomaaliyeed oo ku hor umulaysa xilli saqdhaxa ah isbitaalka hooyada iyo dhallaanka Banaadir hortiisa ahaatee nasiib darro wax gargaar iyo adeeg caafimaad oo la taaban karo ama muuqday looma fidin hooyada waxa ayna halka ku geeriyooday canugeedii saqiirka ahaa iyaduna waxa ay ka badbaaday dhimashada dhiigbax iyo waryari si kastaba ahaatee madaxda ugu sarreysa dalka iyo wasiirka caafimaadka ayaa arintaasi jawaab uga dhigay in ay xilka ka qaadaan maamulka guud ama agaasimaha isbitaalka hooyadii dhallaanka Banaadir cadadan waxay dad badani ku sababeeyeen sida muuqaalada lagu cadeeyay dad marqaatiyana ay ka hadleen ama ay xaqiijiyeen in hooyadan dibadda looga saaray isbitaalka maadaama ay awoodi weysay in ay iska bixiso lacagaha khidmadda adeega dhalmada goobjoogayaal ayaana arrinkaasi cadeeyay waana sababta keentay in maamulka isbitaalka la eriyo dhacdada argagaxa leh iyo cunuga saqiirka Soomaaliyeed ee sida dayac darrada ah u geeriyooday ayaan isku dayay inaan baaritaan ku sameeyo xaaladda musuq iyo tacaddi ee ka jirta isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir waxaan dib ula xiriiray aabaha iyo hooyada cunug dhawaan ku saqiiray isbitaalka hooyada iyo dhallaanka Banaadir 2 bilood ka hor anigan kula hadlaya akhrinaya warbixintan waxay la soo xiriiray qof qaraabada ah wuxuu iga codsaday in aan dhinac ka bixiyo qaaraan dhaqaale lagu leeyahay hooyo lagu xiray isbitaalka hooyada iyo dhallaanka Banaadir hooyadaas arrinkeeda waxa la iigu sheegay in loo haysto lacagtii lagu umuliyay iyo intii ay ku jirtay isbitaalka waxay ugu noqotay argagax markii aan ogaaday in loo diiday inay gurigeeda aado cunugeedii meeyay markii aan weydiiyeen waxa ay xaqiijiyeen in cunugeedii uu saqiiray xaaladda dhalmada waxaana geeridaasi lagu sheegay nafaqo darro iyo cunuga inuu dhicisoobay iminka waxay ku soo bixi kartaa $200 taa ayaana lagaaga baahan yahay inaad dhinac ka bixiso qaaraanka waa hadii aad awoodeen hadaba dhacdadii hore ee cunugii maalmo ka hor ku saqiiray isbitaalka hortiisa iyo midan qaaraankeeda la isoo weydiiyaba waxa muuqata in ay yihiin dhacdooyin isku mid ah sidoo kale markaad eegto warbixinada dadkii goobjooga ahaa dhacdadii ugu dambeysay ee cunuga saqiiray waxay sheegeen in hooyadan qofna aanu la socon iyadana aanan awoodin dhaqaale ama marka aanan wadan maamulka iyo shaqaalaha isbitaalkuna ay dibadda u saareen dabadeedna ay isbitaalka hortiisa ku foolatay canugeediina dad ka maraya ay soo jiideen geeriduna dabcan sida ay ku timid maamulka iyo wasaaraddu waxay sheegeen nafaqo darro dhacdadii hore dhacdooyinkan maalinlaha ah iyana waa sida soo kaleeto hase ahaatee haddii aan hore uga sii socdo warbixinteena isweydii in muddo ah isbitaalka hooyada iyo dhallaanka iyo isbitaalada dawliga ah qaybtooda dhallaanka intuba waxay ahaayeen bilaash isbitaalka Banaadir oo ah mid kamid ah isbitaalada ugu waaweyn ee dabcan bukaanada hooyada iyo dhallaanka qaabila waxa uu ahaa bilaash dhowr sano ka hor ayayna xeer golaha wasiiradu ay ansixiyeen waxay ku soo saareen in lacag laga dhigo isbitaalka adeegyadiisa kala duwan dhibaatooyinka iyo tacadiyada ayaana ka dhashay hadaba isweydii muwaadin xaaska nin xoogsata ah oo shaqo maalmeedkiisii ku maqan hadii xaaskiisa booqato isbitaalka cid qaabilaysa ma jirta xaaska askari furmaha dagaalka ku sugan oo uur leh hadii ay gaarto isbitaalka hooyada iyo dhallaanka Banaadir in la qaabilayo miyay kula tahay isbitaal bilaash ah ayaa loo bedelay meherad ganacsi dad shakhsiyaadana waa ay ku ganacsanayaan aan dib ku xusuusiyo kor inta aanan lacag laga dhigin isbitaalka hooyada iyo dhallaanka Banaadir wuxuu ahaa mid sanad walba ay u adeega in ka badan 200,000 oo hooyo Soomaaliyeed kuwaas oo isaga kala yimid gobolada kala duwan ee dalka haba ugu badnaadaan dadka ku dhaqan gobolka Banaadir markaad eegto warbixinada caafimaad ee sanadlaha isbitaalka iyo wasaaradda intuba waxay sheegayaan
sanadii 2023 isbitaalka hooyada iyo dhallaanka Banaadir waxa uu qaabilay bukaan 210,000 gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka qaybteeda. sanadii 2024 aynu soo dhaafnane waxa uu qaabilay isbitaalka bukaanna gaaraya hooyada iyo dhallaanka 160,000 oo bukaan, taasoo ka dhigan in number xoogan uu iska bedelay tirada bukaanada la qaabilayay. taa waxa loo saweeyay lacagaha khidmadda adeega oo ay dawladdu soo rogtay in dadku ay isaga yaaceen maadaama ay yihiin bulsho iyo shacab duruufo kala duwan aad u adag kuwa ku nool. sanadkan 2025 ilaa iyo bishii October sida uu sheegay wasiirku 150,000 bukaan ayaa loo adeegay. hase ahaatee waxay tani muujinaysaa 2023 ilaa iyo 2025 kala bar inay hoos u dhacday tirada bukaanada uu qaabilayay isbitaalka. hoos u dhacan marka ku yimid bukaanada isbitaalka sanadadan 2023 ilaa 2025 waxa loo sababeynayaa dhaqaalaha la soo rogay oo ka xarareyn dadka shacabka ah oo awoodi waayay bixinta dhaqaale $100 ah oo lagu soo dalacdo kadib dhalmada. jeelka cunugaada haddii uu saqiiro iyo haddii uu ku caafimaad qababa kale lugta ayaa lagaaga xirayaa katiinad helna ugama baxsanaysid isbitaalka. arrintaas waxay sababtay in dadka shacabka ay u leexdaan MCH-yada xaafadaha iyo guryaha dumarka lagu umuliyo ee adeegan qiimo jaban ku qabta. doorkii bilood aynu soo dhaafnay waxaad aragteen dawladda Soomaaliya oo burburinaysa dhul MCH ah. 200 oo MCH ayaana lagu sheegay tirada MCH-yada ay dawladda Soomaaliya burburisay labadii sano ay ugu dambeysay gaar ahaan gobolka Banaadir. dhulka waxa la sheegay in la xaraashay kadib markii wasaaradda caafimaadkuna ay sheegtay in lagaba maarmayba, balse xaqiiqadu waxay tahay maamulka isbitaalka hooyada iyo dhallaanka iyo wasaaradda caafimaadka oo doonaya in ay bukaanada ka cararay isbitaalka ay dib ugu soo laabtaan si looga helo dhaqaale xoogan. dadka loo adeegayay ee yaacay ayaa loo yeerayaa oo laga soo xiray MCH-yada ayay ka dhigan tahay. hase yeeshee qorshahaasi ma uusan shaqeynin. dadkii isbitaalada ka cararay waxay u laabteen guryaha iyo xaafadaha umulisada. maamulka isbitaalka Banaadir oo filayay in bukaanada ay ku soo laaban doonaan isbitaalka Banaadir wuxuu la kulmay layaab iyo fajac kadib markii uu arkay dadkii oo u sii guuray guryaha umulisooyinka xaafadda, meelahaas oo ah dabcan goobo dumarka lagu dhaliyo lacaga yaryar in lagu umuliyo hooyada. hase ahaatee isbuucii hore golaha mihnadlayaasha caafimaadka oo xafiis ku dhaxlay isbitaalka Banaadir ayaa qaaday weerar ka dhan ah umulisooyinka guryaha ku shaqeeya gobolka Banaadir. waxayna hore u kaxaysan ciidamo hubeysan oo boolis ah halkaas hooyooyin masaakiin ah oo xaamilo ah qaarkoodna la umulinayo oo xilligaaba sariir dul saaran ayaa loogu tagay. waxaana la amray in la joojiyo umulintan, xarumahana in la xiro, dadkuna inay ku laabtaan isbitaalada dawliga ah. halkaa ayaa caafimaad saxa laga helayaa ayay yiraahdeen. xogayaha guud ama xogayaha golaha mihnadlayaasha caafimaadka Cadow iyo afayeenka booliska ayaa warbaahinta horteeda ka sheegay inay soo arkeen guryo hooyooyinka uurka looga soo xaaqayo, taasoo loo fasiran karo in wili maamulka isbitaalka Banaadir uu cadaadis saarayo bukaanada si dib ay ugu soo laabtaan isbitaalka hooyada iyo dhallaanka loogana qaado lacag. waxayna ahayd arrinka markaad eegto iyo sida ay u hadleenba gaf iyo dulmi cad oo loo geystay hooyooyinka Soomaaliyeed iyo umulisooyinka kuwaas oo ah dabcan umulisooyinka aqoon iyo khibrad badan kuwa isbitaalada jooga ee hortooda adeeg la'aanta uga dhimanayaan carruurta Soomaaliyeed. isbitaaladii dawladda ee bilaashka ahaa lacag ayay ka dhigtay dawladda. MCH-yadii hooyada iyo dhallaanka ee bilaashka ahaana waa ay xirtay. dhulkii MCH-yadana waa la xaraashay. guryaha umulisooyinka ayaa iminka albaabada la isugu soo dhufanaya. intaas oo dhibaato ah waxa shacabka gobolka Banaadir loogu geysanayo waa dhaqaale urursi iyo ku takrifal awoodeed. ma jiro mas'uul dawladeed Soomaaliyeed iyo shacab arintani ka hadlay. aqoonyahanka siyaasiga iyo culimaduna iyaguna ma garan karno, waa ay ka aamuseen, wayna la aamuseen cilmigooda, garashadooda iyo aqoontooda intaba. xusuusin waqtigii dagaalada sokeeyay ay ka socdeen dalka gaar ahaan gobolka Banaadir iyo Muqdisho oo xaaladeedu adkeyd, haddana hooyada Soomaaliyeed ee uurka leh looma diidi jirin adeeg caafimaad haddii ay soo gaarto goob caafimaad. inkastoo ay xaaladda nafaqo iyo dawo yari jirtay, haddana mas'uuliyiinta caafimaadka isbitaalada iyo hooyooyinka guryaha wax ku umuliyaba waa ay ku dadaali jireen badbaadinta nolosha hooyada iyo ilmaheeda. maanta
shacabka gobolka banaadir ku dhaqan waa canshuur bixiyaal dalka kuwooda ugu badan marka loo eego canshuurta ay ururiso dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaynu oran karnaa boqolkiiba 80 iyo xoogaa iyaga ayaa ah cidda canshuurta dalka bixisa asa ahaatee hooyada Soomaaliyeed ee uurka leh maanta gobolka banaadir kama heli karto adeeg hooyada iyo dhallaanka oo bilaash ah ama tayadiisu ay sareyso waxaana inta dheer qaar kamid ah hooyooyinka Soomaaliyeed ee uurka leh ee aan dhaqaalaha awoodin ee goobaha umulisooyinka guryaha booqday in loogu yeero ama dawladda ugu yeerto dumar wacala iska soo xaaqayo siday doontaba ahaato tani waxayna tusinaysaa heerka musuqmaasuq ay gaartay dowladda Soomaaliya iyo ku tagrifalka awoodda dadka Soomaaliyeed guud ahaan dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacday isbitaalka Banaadir waa ay ka falceliyeen wuxuuna ahaa cunug saqiir ah Soomaaliyeed oo naftiisii la sababsaday balse waxaad moogtahay muwaadin in bil kasta ay 50 caruur ay ku dhintaan isbitaalkaas halka isbitaalada kale ee ku yaala gobolka marka lagu darana ee nambarka 3 jibaarkii noqon karaan taasoo ka dhigan hadii sanadkii isbitaalka hooyada iyo dhallaanka Banaadir 600 ku dhawaad caruur ay ku geeriyoodaan guud ahaan gobolka iyo dalka imise ay noqon karaan imise hooyo ayaana geeriyoon karta jawaabta adigan ku weydiinaya waa tahay tani waa mid kamid ah warbixinada dabagalka musuqmaasuqa hay'adaha kala duwan ee dowladda gaar ahaan kuwa caafimaadka iyo isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir soo dhawaaw saaxiibada la wadaag oo sheer garay aad baa u mahadsantihiin